diyaaradii ay lahayd shirkadda Indian Airlines 12 Juun burburtay ayna ku dhinteen 270 qof oo rakaab ah ayaa warbixin hordhac oo laga soo saaray shilkaasi diyaaradeed waxaa lagu sheegay in matoorada diyaaradda laga jaray shidaalka waxyaruun kadib markii ay kacday diyaaradan oo ku sii jeeday magaalada London. Warbixintan ayaa lagu sheegay in diyaaraddu ay samaysay inay tamar lumiso markii ay matooradu waayeen shidaalka, sidoo kalena qalabka codka duuba ee qolka duuliyaha ayaa laga helay cod uu duubay qalabkaasi oo laga dhex maqlayo mid ka mid ah duuliyaasha diyaaradda oo weydiinaya caawiyihiisa kale sababta uu shidaalka uga jaray matoorada, halka duuliyaha kalena isna uu ugu jawaabay in aanu isagu matoorada ka jarin shidaalka. Warbixintan ayaa lagu daabacay wakaalada wararka ee Reuters ayaa hadalhayn badan ka abuurtay caalamka, iyada oo si weyn la isku weydiinayo sababta shidaalka looga jaray diyaaradda iyo qaabka ay suurtagal u tahay in hal mar la bakhtiyo badhamada sahlaya matoorada uu shidaalku gaadho. Halka warbixintan aad kala socotaan waa Pinolife News.